kanaalka Suez waa marin biyood gacan ku samaysa kaasoo isku xidha badda Mediterranean-ka iyo badda Cas. Maraakiibta ka yimaada Indian Ocean waxay u soo maraan badda Cas waxaanay ka tallaabaan marin biyoodkan Suez iyagoo halkaasi ka gala badda Mediterranean-ka. Waxay taasi saamaxaysaa marin toos oo u dhaxeeya Yurub iyo Asia, waxayna u oggolaanaysaa maraakiibta ka imanaya waqooyiga Atlantic-ka kuna soo dhacaya badweynta Hindiya inay ku soo dhacaan marinka Suez iyaga oo kaga maarmaya inay Afrika ku wareegaan. Marin biyoodkani waxa uu muhiim u yahay ganacsiga caalamiga. Natiijada abuuritaankiisu waxay ahayd xudunta colaad tan iyo markii la furay sanadkii 1869. Kanaalka Suez waxa uu fidsan yahay 120 mayl laga soo bilaabo Port Said oo ku taala badda Mediterranean-ka ee Masar ilaa dhanka koonfureed ee magaalada Suez. Waxay qaadatay 10 sano in la dhiso marinkani, waxaana si rasmi ah loo furay November 17, 1869. Waxaa marinka maamula hay'adda kanaalka Suez. Ujeedooyinka marinkan loo sameeyay waa kuwa ganacsiyo haddii loo baahdo kuwa dagaal labadaba. Fikradda ah in loo baahan yahay marin biyood weyn waxaa la gorfeeyay 1830, waxaana tan hawsheeda lahaa injineerkii iyo sahamiyihii Faransiiska ahaa ee Leland de Balafonis oo takhasus iyo cilmi aad u weyn u lahaa Masar. Sahamin kadib waxay Leland iyo kooxdiisu ay xaqiijiyeen inay munaasib tahay in halkaasi laga abuuri karo marin biyood. Waxaa waqtigaasi Masar ay hoos imanaysay xukunka boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxaana Maxamed Saciid Baasha oo Masar iyo Suudaan waali uga ahaa Cusmaaniyiintu uu siiyey diblomasigii Faransiiska ahaa ee Ferdinand de Lesseps fasaxa inuu abuuro shirkad si uu u dhiso kanaalka. Shirkadaas oo markii dambe loo bixiyey shirkadda Suez Canal waxaa la siiyey heshiis 99 sano ah oo ku saabsan marin biyoodka iyo nawaaxigiisa. Tallaabadii ugu horreysay ee Lesseps waxay ahayd inuu abuuro guddi caalami ah oo ka kooban 13 xubnood oo khubaro ah oo ka kala socday 7 waddan oo uu ku jiro Alois Negrelli. Negrelli waxa uu si wax ku ool ah u dhisay shaqada Balafonis iyo sahankiisii asalka ah ee gobolka, wuxuuna ka qaatay door hogaamineed horumarinta qorshayaasha qaab dhismeedka kanaalka Suez. Warbixinta kama dambaysta ee guddida waxa la sameeyay 1856. 2 sano kadibna shirkadda Suez Canal ayaa si rasmi ah loo aasaasay. Dhismihiisu waxa uu ka bilaabmay dhinaca waqooyi ee Port Said ee dhammaadka kanaalka horaantii 1859. Shaqada qodista waxa ay qaadatay 10 sano, waxaana mashruucan ka shaqeeyay dad lagu qiyaasay 1.5 milyan oo qof. Waxaana intii dhismaha marinkani socday ku dhintay dad kumanaan gaadhaya, iyadoo la tilmaamay intaas ay sabab u ahaayeen daacun iyo waxyaabo kale. Qalalaasaha siyaasadeed ee gobolka ayaa saameyn xun ku yeeshay dhismaha kanaalka. Masar waxaa markii dambe xilligaasi ka talinayay Ingiriiska iyo Faransiiska, waxaana jiray dhowr jabhadood oo ka soo horjeeday gumaystaha. Waxaa taas wehelinaysay awoodda tiknoolajiyad oo xadidnayd, waxaana qarashka dhismaha marinkaasi ku baxay lacag dhan $100 milyan oo ah laba jibaarka qarashkii loo qoondeeyey. 17 November 1869 ayaa xadhigga laga jaray marinkaasi. 1915 dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa marinkaas dagaal ku dhex maray boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Ingiriiska. Heshiiskii Anglo-Egyptian ee 1936 ayaa dib u xaqiijiyey xakamaynta Britain ee marin biyoodka, kaasoo noqday mid muhiim ah intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Kadib dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1951 Masar waxa ay ka baxday heshiiskaasi. Wadaxaajood sanado ah kadib Ingiriisku waxa uu ciidamadiisa kala baxay kanaalka Suez sanadkii 1956 isaga oo si hufan ugu wareejiyay dowladda Masar oo uu xilligaasi hogaaminayay madaxweyne Jamal Abdi Nasir. Nasir waxa uu si degdeg ah ugu dhaqaaqay inuu qarameeyo hawsha kanaalka, wuxuuna sidaasi sameeyay isagoo u wareejiyay kanaalka Suez Canal Authority oo ah wakaalad dowladeed bishii Luulyo 1956. Ingiriiska iyo Mareykanka labaduba ay ka cadhoodeen tallaabadan iyo sidoo kale dadaaladii dowladda Masar ay ku doonaysay inay xiriir la samayso midowgii Sofiyeeti ee waqtigaasi.
markii hore waxa ay kala noqdeen taageerada dhaqaale ee loo ballan qaaday hagaajinta la qorsheeyay ee Suez oo ay ku jirto dhismaha biyo-xidheenka Aswan. Si kastaba ha ahaatee, iyaga iyo quwadaha kale ee reer Yurub ayaa aad uga cadhooday go'aanka xukuumadda Nasir ee ah in la xidho marinbiyoodka Tiran oo ah qayb biyo ah oo isku xidha Israa'iil iyo Badda Cas. Iyaga oo raba inay ka jawaabaan tallaabooyinkaasi, waxay bishii Oktoobar 1956 ciidamo ka socda Ingiriiska, Faransiiska iyo Israa'iil ay ku hanjabeen inay duulaan ku yihiin Masar, taasoo keentay waxa loogu yeedhay Suez Crisis. Isaga oo ka duulaya sii hurinta colaadda xoghayaha arrimaha dibadda ee Canada, Lester Bowles ayaa ku taliyay in la dhiso ciidamo nabad ilaalin ah oo qaramada midoobay ay leedahay oo ah kuwii ugu horreeyay ee noocooda ah si loo ilaaliyo kanaalka loona hubiyo, ayaa uu yidhi. Qaramada midoobayna waxay ansixisay soo jeedintaasi Noofembar 4, 1956. Inkasta oo shirkadda Suez Canal ay sii waday inay ka shaqayso marinbiyoodka, ciidamada qaramada midoobay waxa ay sii wadeen gelitaanka iyo sidoo oo kale nabadda jasiiradda Sinai ee u dhow. Tani ma ahayn markii ugu dambeysay ee kanaalka Suez uu door dhexe ka ciyaaro iska horimaadyada caalamiga. Si kastaba ha ahaatee, bilowgii dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1967, Nasir waxa uu ku amray ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay inay ka baxaan jasiiradda Sinai. Israa'iil ayaa isla markiiba ciidamo u dirtay gobolka, waxayna ugu dambeyn la wareegtay gacan ku haynta daanta bari ee kanaalka Suez. Isagoo aan doonayn in maraakiibta Israa'iil ay galaan marinbiyoodka, Nasir waxa uu xanibay dhammaan isu socodka. Waxaa xusid mudan 15 markab oo kuwa xamuulka ah hore u soo galay kanaalka xilliga xanibaadda ka hor ayaa ku xayirmay halkaasi muddo sannado ah. Dagaalka kadib mar kale marinku waxa uu noqday mid ammaan ah, waxaana dib u furay kanaalka sanadkii 1975 madaxweyne Anwar Sadat. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Israa'iil waxay ku nagaayeen gacanka Sinai ilaa 1981, taasoo qayb ka ahayd heshiiskii nabadda ee Masar iyo Israa'iil sanadkii 1979. Waxaa loogu yeedho ciidamada caalamiga ah ee halkaasi ku sugan ilaa maantadan, iyagoo u jooga ilaalinta iyo ka warhaynta marinkan muhiimka. Maantadan la joogo celcelis ahaan 50 markab ayaa maalin kasta mara kanaalkan, kuwaasoo qaada in ka badan 300 milyan oo tan oo alaabo ah sanadkii. Sanadkii 2014, dowladda Masar waxay ku bixisay ballaarinta marinkan in lacag dhan $8 bilyan, waxaana ay qaadatay muddo 1 sano ah ballaarintaasi, waxaana taasi saamaxday in maraakiibtu ay isu weydaaran karaan labada jihaba. Inkasta oo la ballaariyay, haddana sanadkii 2021, markab weyn oo ka yimid Shiinaha ayaa ku xayirmay kanaalka, wuxuuna xanibay in ka badan 100 markab. Dhacdadan ayaa hakisay ganacsiga caalamka muddo ku dhow 7.